waxaa deganaansho aan cagad badan ku taagnin laga dareemayaa nawaaxiga filla Soomaaliya oo shalay ciidamo fara badan oo iska soo horjeeda ay soo buux dhaafiyeen. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii habeen hore xilli dambe warqad uu soo saaray madaxweynaha xilkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu sheegay in shaqada lagaga joojiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo warar xigay oo soo baxayay in askar ka tirsan ciidamada dawladda laakiin ka amar qaata xafiiska madaxweynaha Farmaajo inay tageen xafiiska ra'iisul wasaare Roble si ra'iisul wasaaraha looga hor istaago xafiiska. hasaatee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa socdaal ku tagay xafiiskiisa iyadoo isla shalay hadal uu sii daayay oo ku sheegay in go'aanada dawladda xilligan wixii ka dambeeyay loo daba fariisanayo xukuumadda Soomaaliya. ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabacsan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda Soomaaliya ayaa isku horfadhiyay aagaga madaxtooyada Soomaaliya iyadoo weli saaki magaalada Muqdisho laga dareemayo xaalad deganaansho oo aan badnayn marka la fiiriyo weli gaadiidka waaweyn ee beebayaasha ah ee ku go'an iridyada laga galo madaxtooyada Soomaaliya. laakiin magaalada waxaana lagu arkay dhaqdhaqaaqii ciidamada dawladda ee ka soo horjeeday kuwa filla Soomaaliya ay soo dhoobteen nawaaxiga madaxtooyada qaranka. gaadiidka waaweyn ee beebayaasha ayaa weli ku go'an jidadka laga soo galo madaxtooyada qaranka ee Soomaaliya taas oo ay ku gooyeen askar ka amar qaadata madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ee Soomaaliya. dhinaca kale degmooyinka bari iyo kuwa galbeed ee magaalada Muqdisho waxaa xalay soo dhaafay dhowr gaadiid oo dagaal kuwaas oo ka kala yimid gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. gaadiidka dagaalka ayaa waxaa qaar ka mid ah saraakiishooda oo hadasho ay sheegeen inay yihiin ciidamadii bishii Abriil magaalada Muqdisho soo galay kuwaas oo ka hor yimid qorshihii filla Soomaaliya iyo hogaankii golaha shacabka ee waqtigooda uu dhamaaday ay ku doonayeen in muddo 2 sano ah loogu kordhiyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya. hase ahaatee ciidamadaas ay sabab u noqdeen in filla Soomaaliya ay dib uga laabato damaceeda oo ay hogaanka doorashada iyo sidoo kale muddada xafiiska lagu sii wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. sargaal ka mid ah saraakiisha ciidamada xalay lagu arkayay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mar kale ay magaalada dib ugu soo laabteen sabab la xiriira xiisada hadda taagan. caqabad waxa ugu filan inta waqtigiisu dhamaaday ee ku jiray oo aan ganacsi jirin oo aan hore gadaal loo socon oo qarax iyo shabaab iyo wax soo kordho dhibaato ma ahan wax natiijo u sagaan Allah hadduu qadaro waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha wasaaraha in uu muddo dambe iyo maalmo dambe noo soo qaban oo uu naga hor wareego oo uusan na gaarsiin in aan mataqaanaa isheeg aan anagu kala dhiman. xawaaye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan noo sheegay senator Muuse Suudi Yaraxu ee qayr hasiin xawaaye soobax ku soo bixi ma sida uu noo sheegay soobax ku soo bixi ma gacanta waa in laga soo qabto waana ka soo qabaynaa. waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha beesha caalamkan aanu sheegaynaa wax eeda inaan ku rayn anagu waxa waaye dalkan haddii wax dubayaan ama wax burburayaan waa waxaan kiiloomitir dhamayn. wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya laguna tirinayo garabka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu uga hadlay xiisada magaalada ka taagan iyo ku milan uu sheegay in askar ka tirsan ciidamada dawladda ay ku milmayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. wasiirka ayaa qoraalkiisa ku yiri ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waa inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda qodobkiisa 129aad. cidna looma ogolaan karo in ciidamada ay u adeegsadaan danahooda siyaasadeed. waxaan ku jirnaa waqti kala guur ah waa in ciidamada ay ilaaliyaan sharciga una hoggaansamaan xeerarka anshaxa ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa in ay ka fogaadaan ku milanka siyaasadda waana in aysan qaadan awaamiir walba oo hareen marsan sharciga. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ka mid ahaa wasiiro shalay lagu celiyay baro control oo ay gaadiid dagaal ku soo jireen ciidan ka amar qaata xafiiska madaxweynaha Farmaajo. inkastoo mar dambe dadaal la bixiyay ay suura gashay inay gudaha u galaan xarunta filla Soomaaliya isla markaana ay tagaan xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. ilaa iyo hadda labada xafiis ma jiraan warar ka soo kala baxay marka la fiiriyo habeenadii la soo dhaafay qoraallo isu jawaabid ah oo ka soo baxaya xafiiska. dadka Muqdisho ayaa dareemaya saasaan colaadeed oo u dhaxaysa labada dhinac haddii aan xal loo helin waxaana xaaladaha taagan ay u muuqanayaan kuwa sii cakirinaya dadka ku nool magaalada Muqdisho noloshooda oo markii hore culays dhaqaale iyo mid nabadgeliyo wajahayay.